Filimku wuxuu ku bilaabmaa Zack Storm oo xaday silsiladii aabbihiis. Aabbihiis ayaa ogaada arrintaas, wuxuuna bilaabaa inuu eryado. Zack wuxuu ku jiraa bad isagoo ku dul sabaynaya loox, islamarkaana si toos ah u baahinaya muuqaal, halka aabbihiis uu ku soo ordayo isagoo ku qaylinaya inuu iska bixiyo silsiladda. Zack ma dhigaysanayo, silsiladiina waxay abuurtaa daruur madow oo qaab madax qalfoof ah leh, balse Zack wuxuu u malaynayaa inay tahay duufaan caadi ah. Aabbihiis wuxuu sii wadaa inuu ku yiraahdo silsiladda iska bixi, balse weli ma dhigaysanayo, markaasna albaab sixir ah ayaa furmaya oo laqaayo. Wuxuu naftiisa ku yiraahdaa inuu kaliya u baahan yahay inuu gaaro dhinaca kale, balse awood ayaa jiida silsiladda. Ugu dambayn wuu dabaalanaa wuuna badbaadaa, wuxuuna u sheegaa dadkii daawanayay baahintiisa tooska ah inuu badbaaday isagoo waxba gaarin. Wuxuu ogaanayaa inuu ku sugan yahay meel cidlo ah, islamarkiiba wuxuu arkaa masduulaya u soo socda. Kraken ayaa ka soo baxaya biyaha, wuxuuna cunaa maskii duulaaye. Silsiladdu waxay calaamad u dirtaa Dawn, waxayna bilaabataa inay u soo dhaqaaqdo dhanka Zack. Intuu ka cararayo Krakenka, Master Sculifer wuxuu u yeeraa Golden Bones, isagoo leh wuxuu dareemayaa joogitaanka wax qadiimi ah oo ku sugan badda baru. Golden Bones wuxuu ballanqaadaa inuu baari doono qayb kasta oo ka mid ah badweynta, islamarkaana u keeni doono isaga. Zack weli wuu ka cararayaa Kraken, wuxuuna arkaa Dawn. Wuxuu u sameeyaa calaamad doonta, balse doontu waxay hoos u galee biyaha, islamarkaa Krakenku uu ku dhow yahay inuu cuno Zack. Doontu waxay ku dhacee Krakenka, wayna badbaadinee.